marka caawa haddaan ku hormarno falanqaynteena suuqa waxaan ka bilaabayaa DXY waxa weeye maxaan ka sugaynaa DXY waxaan ka sugaynaa insha Allah hadduu la yiraahdo waxaan moodaa DXY inay mataqaanaa seelkeedu markaan cad yahay oo waxa weeye seel qurux badan waxa weeye ay u soo daadatay asbuucii hore asbaabtay u soo daadatayna waxa weeye waxa kamid ah suuqa mar walba waxa weeye trendigiisa horta inaad qiimeysid trendiga suuqa wuxuu sameynayo suuqa trendigiisu waa down kadib waxaa fiirisaa waxa weeye meelaha levelska insha Allah hadduu la yiraahdo markaan falanqaynta dhameeyo kadib qof walba uu weydiin karaa waxa weeye buyerku u baahan yahay oo kale in loo falanqeeyo insha Allah hadduu la yiraahdo sidoo kalena waxa weeye wixii su'aalaha insha Allah waa inay furan tahay marka DXY waxaan fiirin doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo sababtu xagga uga soo laabtay DXY wuxuu ka soo laabtay double topkaas DXY double topkaas sababtu uga soo laabtay waa maxay sababtu uga soo laabtayna waxa weeye wax kale maaha wuxuu soo dhameysanayay shuruuduhu soo dhamaystay waa maxay haddaad fiirisid waxa weeye DXY meesha waxa weeye waa meel waxa weeye supply zone ah supply zone maxaa ka dhigay suuqa almost opposite zone ku waajibiyay soo laabtay equal high buu samaystay meesha ku samaystay liquidity waxa weeye mataqaanaa waxa weeye liquidity walka uu samaystay kadibna waxa weeye equal high buu samaystay kadib dadkii waxa weeye buyerskii suuqa waa sellerskii suuqa waa laga saaray halka ka galay suuqa oo halkan double top intay u adeegsadeen kadibna suuqa soo selgareeyay halka waxa weeye waa laga saaray oo waa looga dhuftay kadibna maxaa dhacay kadibna waxa weeye suuqa waa soo daatay kadib suuqa markuu soo daatay muxuu sameeyay halkan wuxuu ka sameeyay waxa weeye haddaan isla fiirino hal mar baan waxa weeye dhaleedayaa wax oo dhan insha Allah hal mar baan soo falanqeynayaa isla eegaynaa hal mar baan isla eegaynaa marka ugu horeysa horta haddii aan fiirino waxa weeye market structure ahaan haddaan fiirino haddii waxa weeye suuqa aan u fiirino market structure ahaan muxuu suuq sameynayaa double top buu joogaa double topka muxuu ku tagay double topka wuxuu ku tagay waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 buu suuqa halka ku tagay qurux badan una soo dhamaystirtay kadib maxaa dhacay halkaana waxa weeye laba taabasho ka sameeyay laba taabash markuu sameeyay kadib suuqina aan aragnay shuruudihii inuu sameeyay oo ah liquidity ahaan ama waxa weeye supply and demand suuqa waxa weeye ahaan suuq muxuu sameeyay opposition kii buu jabiyay uu soo laabtay holkii uu sameeyay equal high-gii uu sameeyay kadibna suuq waxa weeye meeshii haddana wuxuu ku tagay pattern within pattern halkan muxuu ka sameeyay 1 iyo 2 iyo 3 buu ka sameeyay plus 1 iyo 2 iyo 3 kadib suuqa trailing waa soo jabiyay halkan maxaa naga hooseeyay zone baa naga hooseeyay haddii suuq uu zone ka jabiyo kadibna uu soo laabto kadib waxa weeye suuqa wuxuu noqonayaa down trend buu noqonayaa laakiin se waxaan fiirin doonaa insha Allah hadda waxaan joognaa daily time frame waxaan wada tegi doonaa hadduu la yiraahdo 4 hour time frame suuq muxuu sameynayaa asbuucan 4 hour time frame almost waxa weeye wuxuu jibiyay lacagta dollarka waxay jibisay trend line bay jibisay trend line bay lacagta dollarka jibisay trend line ka ha jibisa ma xuma sidoo kale waxa weeye ma samaysay retestigii trend line ki almost waxay ku samaysay retestigii bay ku samaysay oo waa kan zone-kii waxa weeye u dambeeyay oo last lower high-gii wakaas suuq uu jibiyay kadibna muxuu ku sameeyay retestig buu ku sameeyay marka hadda intrigeenu waa xagee intrigeenu waxa weeye suuq halkan haddaa fiiri sidoo kale waxaan raadinaynaa suuq inuu nagu laabto waxa weeye supply zone yara supply zone-ka waxa laga yaabaa 1 hour inaan ka helno 1 hour kan tageynaa marka 1 hour haddaan tagno suuqu hadda muxuu sameynayaa suuqu hadda wuxuu sameynayaa haddii aan ku laabto 4 hour-ka halka waxa weeye waa zone aan sugayna suuq inuu nagu sameeyo retest sidoo kale meelahaas waa in supply zone meelaha uu ku jiraa 1 hour baan tageynaa waxaan ka fiirin doonaa insha Allah meesha inuu supply zone ku jiro supply zone-ka maxaa lagu raadiyaa supply zone-ka waxa lagu raadiyaa suuqu oo waxa weeye suuqa see looga raadsadaa suuqu inuu horta jabiyo waxa weeye supportiga ka soo horjeeda suuqu waa jabiyo waa kan sidoo kalena waxaan pattern bay ku noqonayaa as a pattern marka structure ahaan markaan u fiirino halkan waxa weeye waa pattern waxa weeye waa flag baa meesha ka dhacay fast flag baa ka dhacay waana horizontal flag caadiya ama rectangle caadiya saas suuq u la laabtay labada dhanba waxa rectangle ka saaray ka dhaa kadibna suuq markuu ku jibiyay sabab tira gareyn ka dhaa xagee waxa weeye laga qaataa waxa weeye maalin dhawid baan sharxayay markii aan waxa weeye aan dhahayay flag noocan oo kala interview waxa laga qaataa halkaas laga qaataa kadibna waxa weeye asalka xaggaas la dhigtaa halkaas laga galaa kadibna asalka xaggaas la dhigtaa ama waxa kaliya meelaha maqashaan miya ku maqalnaa si fiican marka codka iska xirta insha Allah haddii la yiraahdo
kadib maxaa dhacay kadib suuq wuxuu sameeyey kadib suuq falaag qurux badan buu sameeyey marka suuq muxuu sameynayaa retest buu suuq sameynayaa falaagii wuxuu ku sameynayaa uu jibiyey retest buu ku sameynayaa lacagta marka DXY waxaan ka sugaynaa insha Allah Abdullaah yiraahdo inay retestiga noo sameyso marka retestiga qaab nooceeyaan waa fiirin doonaa insha Allah as suuqa markaan ka qiimeeyno oo kale as suuqa markaan ka qiimeeyno mataqaanaa supply zone aan ka soo trade gareyn doono supply zone ka soo trade gareyn waxa weeye halka hadda fiirisid suuq wuxuu ka sameeyey waa supply zone ku suuq muxuu sameeyey opposite zone ki suuq waa jabiyey suuq waa ku soo laabtay halka marka suuq inuu naga siiyo waxa weeye liquidity hole yar inuu naga siiyo kadibna waxa weeye suuq uu sameeyo counter trend line inuu sameeyo oo ah suuq inuu meeshaan waxa weeye wax yar suuq inuu wax yar saa ugu laabto as flag ugu laabto kadibna meelahan oo kale waxa weeye uu ka soo laabto mar labaad uu laabto halka waxa weeye kadibna uu jabiyo equal higher uu meesha ka samaysto 15 minutes oo kale kadibna waxa weeye suuqa halka aan ka soo seel gareyno sidoo kale maxay ku aadamaysaa sidoo kale waa confirmation fiican oo waxay ku aadamaysaa sonkii 4 hour ka ahaa oo aan ka sugeynay waxa weeye suuqu inuu waxa weeye noogu laabto oo uu noogu sameeyo retest hadda fiirisid sonkii aan ka sugeynay suuqu inuu noogu sameeyo retest iyo meeshii waxa is noqonayaan baseen bay ma noqonayaanba kadib waxa weeye waa laba confirmation break and retest ahaan confirmation koobaad sidoo kale confirmation labaad oo ah supply zone ka marka lagu laabto waxa weeye suuqa ka soo qaadanaysid oo seel soo qaadanaysid marka hadda waxaan haysanaa laba confirmation baa haysanaa target kaaga koobaad waxa ka dhigan karaa target kaaga koobaad waxa ka dhigan karaa ilaa halkaas war hawarkan ku laabanaya war hawarka target kaaga koobaad waxa ka dhigan karaa ilaa halkaas suuqu trailing ku soo jibiyay wax walba ku soo jibiyay lacagta waxa weeye Mareykanka asay fundamental marka fiirisid COVID-19 ka wadanka ku soo batay sidoo kale waxa la yiraahdo lacagta dollarka maalintii newska u dambeeyay maalintii dhawaato wuxuu ka dhigay negative ka dhigay lacagta euro USD lacag kale dhan bay aadeen oo waliba momentum bay ku dhaqaaqeen marka waxaan sugeynaa correction yar inuu sameeyo dollarku kadibna waxa uu soo daato waa ka gudbaya insha Allah Abdullaah yiraahdo targeting kooda ilaa halkaas ka dhigan ka dhanka labaadna ilaa halkaas ka dhigan kan Abdullaah yiraahdo waxaan ku xijinayaa euro USD maxaan ka rajaynaynaa insha Allah Abdullaah yiraahdo euro USD waxaan ka rajaynaynaa insha Allah fursad buy ah fursad insha Allah Abdullaah yiraahdo buy ah ayadana waa inuu soo bilaabaya insha Allah Abdullaah yiraahdo daily time frame baan tagayaa daily time frame markaan fiiriyo kadib waxaan eegayaa daily time frame kadib waxaan eegayaa suuqu almost jihadii waa soo dhameystay oo muxuu sameeyay halkan waxay ahayd low bay ahayd oo waxa la rabaa suuqu inuu halkan ka dhaqaaqo oo buy ka aado laakiin suuqu waxa weeye halkan dad baa waxa weeye suuqa looga saaray oo equal low yar bay noqotay kadibna halkan baa waxa weeye suuqu wuxuu ka soo laabtay zone kan wax yar u jirsaday oo hadii aad fiiriso sidoo kale zone kan kan dhalkaan oo kale hadaa saartay rejection ka oo kale almost waxa weeye wuu hit gareeyay marka halkaas waxa ahayd low bay ahayd lowga qaab noocay lagu yimid war hawr baan tagaynaa insha Allah Abdullaah yiraahdo war hawrka qaabka lagu yimid waxa weeye waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo aad moodid wax yar in loo jirsaday 1 iyo 2 hadii laakiin kanalada hadaas caadadiisa u saadid 3 inuu gaaray waa ku muuqanaysa laakiin waligaa suuq lama khasbo almost iska wadaba 3 inuu soo gaarin halkaas oo kale iska dhigo kadib suuq wuxuu sameeyay waxa weeye channel buu ku jiraa down trend ah oo waliba channelkan noocee weeye waa descending waana waxa weeye waana reversals weeye badanaa waxa weeye channelkan oo kale wuxuu suuqa ka dhigaa reversal buu ka dhigaa kadib suuqu meeshan muxuu kaga soo dhaqaaqay meeshan suuq almost bottom buu kaga soo dhaqaaqay oo waxa weeye suuq almost intuu soo dhaco inuu dhamaystirto kadibna uu buy aadan sugayna insha Allah Abdullaah yiraahdo sababta marka halka aan buy uga sugayna waa maxay aan suuqa buy ugu dirnay hadda suuq wuxuu joogaa meel mataqaanaa head and shoulder-ka wuxuu joogaa neckline-kiisii marka insha Allah Abdullaah yiraahdo inuu jibinayo waxa weeye waa laga yaabaa waa macquul inuu suuqa halka jibiyo haddii kale maxaa waxa weeye ka qurux badan inaa waxa weeye suuqa trendiga uga gashay waxaan fiirin doonaa marka koobaad suuq ma jibiyo trend line-kii yarka ahaa trend line-kii wuu jibiyey trend line-kii halkaas wuu jibiyey trend line-ka markuu jibiyey kadib waa confirmation labaad break and retest muxuu sameeyey break and retest suuq wuxuu ku sameeyey meeshii ahayd waxa weeye fast break and retest suuq waa sameeyey intriga koobaad halkan uu naga siiyey kadib qof ka faa'iideystay waxa euro USD wuxuu siiyey 76 bid markii waxa weeye qof uu ka faa'iideystay kadib waxaan rabnaa intriga labaad inaan ka helno insha Allah Abdullaah yiraahdo intriga labaad say ugu helaynaa intriga labaad waxaan ugu helaynaa xaggan xataa qofka intriga ka galay suuq wuxuu fiirin karay halkan opposite zone yar la jabiyey laakiin xaggan oo kale buu ka fiirin karaa xaggan opposite zone la jabiyey la soo laabtay aad iman yar lagu soo laabtay laakiin wali dhimaan abuurmayay buu ahaa oo waa kan opposite zone-kiisii la hadda la jabiyey sidoo kale supply zone-kii waa kan halkan waxa way ku tahay supply zone bay ku tahay waxaan tagayaa 1 hour insha Allah Abdullaah yiraahdo meesha waa meesha aan sugeynaa Abdullaah yiraahdo suuq inuu nagu soo laabto oo anaga ahaan as macnaha
market structure ahaan suuq waa kusoo taxliilinay wax walba waa kasoo fiirinay hadda waxa kaliya aan ka sugayno waxa weeye insha Allah hadii la yiraahdo suuq in halka uu noogu soo laabto haddii suuqu halka uu noogu soo laabto fast entry-geena waxa weeye waxaan fiirin doonaa qaabka lagu yimaado haddii qaab kan weyn uu soo dhaco markaas oo kale waa inaad ka joogsataa laakiin qaabka hadda waxa weeye meeshaas haddii saa loo soo dhaqaaqo wax yar kadib suuq meelahan uu ka laabto kadibna uu yimaado waxa weeye halka waxay ku noqonaysaa entry-gaaga insha Allah hadii la yiraahdo waana fursad buy ah lacagta dollarka waxa midda kale waxyaalaha waxa weeye asbuucan raba inaad isha ku sii haysaan waxa kamid ah lacagta dollarka waxa ka soo baxaya news baa ka soo baxaya newska ka soo baxaya hadii la yiraahdo waxa loo baahan yahay waa NFB inaad ka taxadadaan newska meeshu waxa weeye u dhaqaajiyo lacagta dollarka ah bay waxa weeye bishaas dhan laga yaabaa inay ku sii socoto marka hadii la yiraahdo warkaasna waa sugeynaa insha Allah hadii la yiraahdo inta ka horeysana suuqa aas scalper ahaan ku dhufo ka dhaqaaq oo kala looga faa'iideystaa marka lacagta waxa weeye US dollar haddii halka ay timaado insha Allah hadii la yiraahdo waxa weeye waa demand zone qurux badan weeye marka demand zone ka hadday timaado insha Allah hadii la yiraahdo fursad buy ah hadii la yiraahdo waa ka raadsan kadhaan ilaa targetkiina oo kale waxa ka dhigan kadhaan 4 hour ka hadaan tago targetka koowaad oo kale ilaa waxa weeye ilaa supply-gaas oo kale haddaad xataa dhigataan targetka koowaad supply-gaas weyn iyo halka lagu soo laabto ilaa supply-ga waa 66 bib halkaas oo kale inaad suuqa kaga qaataan faa'iidadeedna oo aad kaga baxdaan almost in halkan suuq wuxuu ka samaystay trend buu ka samaystay trendigaas waxa weeye waa up trend cusub hadda abuuranaya marka halka insha Allah hadii la yiraahdo lacagta dollarka saasan ka sugaynaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo USD CHF ayada aad uma qurux badna oo lacag hadda la dhigi karo waxa weeye waa lacag qurux badan maaha laakiin se hadda qaabka ku socoto kala hadaa fiirisid qaabka ku socoto kala lacag isdiyaarisay wali maaha almost waxay sameynaysaa waxa weeye waa dhaqaaq soo laabasho inay dhaqaaq sii samayso ama soo dhacdo waa macquul in iska sii daato hadda almost kan waxa samaystay kan galvin ay samaysay marka inay soo dhacdo waxa weeye ilaa looga timaado waa waxa la rajeenayo insha Allah hadii la yiraahdo maadaama dollarka ay ku xiran tahay lacagtan marka almost lacagtan waxay samaysay halkan low year baa ka jiray oo waxa weeye suuqa markii aan ka raadinayna sell maxaan ka raadinaa suuqa inuu noo jabiyo equal lows inuu suuqa noo jabiyo equal lowski suuq waa jabiyay waxaan ka wadaa halkan suuq inuu jabiyo waxa weeye opposite support inuu jabiyo wuu jabiyay kadib suuq waxay ku soo laabtay suuq demand zone-kii ku soo laabtay demand zone-kii waxa weeye suuq ku soo laabtay oo mar labaad waxa weeye retest gareeyay halkan waa order block way caadi ah order block waa suuq ku soo laabtay si fiican hadda u sii fiirsan ilaa xagaa dhigatid uu soo laabto suuqii kadib maxaa ku xiga kadib waxa ku xiga suuq markuu halka yimaado in waxa weeye daato oo si qurux badan u sii daato marka almost hadda meesha suuqa uu marayo waxa weeye waa meel low away waa meel suuq wuxuu marayaa low abu marayaa marka almost in waxaan rasuweynaa insha Allah trendiga yarka suuq uu jabiyo wuba jabiyo almost trendiga markuu jabiyo kadib halkaana muxuu ku daray halkaana wuxuu ku daray lowgii buu ku daray almost low hadda uu jabi rabaa almost waa waxa yarba waa la jabiyay halkan dal baa jabiyay marka hadda candle baa abuurmay candle ku xiga haduu sell noqdo meesha waxay ku noqonaysaa demand bay ku noqonaysaa suuq waa supply zone uu suuq samaystay bay ku noqonaysaa area-daas marka suuq halka uu ku laabanaya insha Allah hadii la yiraahdo uu retest gareynaya markuu halka retest gareeyo waxa weeye fursadaada sell-ka ah ilaa halka waa ka soo faa'iideysan kartaa ilaa intaas waxay tahay bips waxa weeye ma sha Allah ilaa halka waxa weeye waa 92 bip 92 bip waa ka faa'iideysanaysaa suuqi macnaha markay structure ku soo analyze garee kadibna waxa weeye entry habaysan oo fiican waxa weeye halka ka qaado hadda fiirisay xataa halka waxay ku noqonaysaa almost trend bay ku noqonaysaa hadda fiirisay trend caadi trailing suuq uu ku sameynayo test marka lacagtaasna insha Allah hadii la yiraahdo si aan ka sugno fursadda waxa weeye sell-ka waan ka sugeynaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo waxaan ku xijinayaa GBP USD ayada insha Allah fursad waxaan ka raadinaynaa wala maqla Soomaa walaal codkayga wala maqla Soomaa si fiican marka hadda lacagtan ayada GBP USD maxaan ka sugeynaa waxaan oo dhan waa tirtiraya insha Allah hadii la yiraahdo GBP USD ayada market structure ahaan marka hore ku soo taxliil suuqa almost halkan supply wuxuu yimid demand zone buu yimid uu ka dhaqaaqay the second entry markaan uu bixiyay marka suuqa halkan uu ka bixiyay kadibna uu dhaqaaqay kadib in jihadaas ilaa waxa weeye halkaas in la sii socdo
way u badan tahay waa macquul laakiin markaan waxa weeye anagu maxaan fiirinaynaa intriga waxa weeye hadda anagu aan suuqa ka qaadan karno waa maxay intriga suuqa aan ka qaadan karno waxa weeye halkaa waxay ahayd fast intriga uuna dhaafay kadib waxaa saarataa trendinga suuqa waa maxay trendinga suuqu still waa down trend still trendinga suuqu waa down trend laakiinse halkaana maxaa yaala halkaana waxaa jira zone baa jira laba mid marka waa kaga trade garayn karnaa in suuqu hadduu meesha uu jibiyo oo retest ku sameeyo buyga waa u qaadan karnaa ilaa halkaasna waa haysan karnaa ilaa halkaasna waxa weeye suuqu waa hayn karnaa haddii kale waxaa samayn karnaa waxa weeye 1 hour ka tagi karnaa maadaama suuqa suuq uptrend hadda cusub bilaabanayo uu egyahay almost halka ay noqon kartaa trend line ay ku noqon kartaa almost trend line hadda suuqa halka ka saarmi karaba mustaqbalka trend line halka ay noqonayso laakiin suuqu waxa weeye meeshan wuxuu ka jibiyay equal highs yar buu ka jibiyay halka laga yaabo inay sell yar ka soo galeen laakiinse halkan buyers suuqa u fadhiyo oo ka galaya baa ka badan maadaama halkan waxa weeye buyers ay fadhiyaan suuqa halkan laga jibiyay equal highs yar la jibiyay kadib suuqu soo laabtay halkan waxa weeye demand zone u weli ka abuuran laakiin hadaa fiiriso halkan uu ka abuurtay hadda marka halkan in lagu soo laabto mar labaad oo waxa weeye suuqa halkan uu ku sameeyo retest baan si weynaa insha Allah haduu ilaahay halka inuu soo dhaco buyers sellers suuqa soo galaan la khaldo kadibna waxa weeye aan suuqa buy u galnaa haduu ilaahay yiraahdo sababtan buy u galayna waxa weeye almost suuq wuxuu abuurtay trend cusub hadda abuuranaya inkastoo trendigi la jibin laakiinse possibility anigu aan ka sugayna maadaama dollarku uu sel yahay GBP/USD waxa weeye in xogaa ay soo dhacdo kadibna waxa weeye meeshan ay ka aadbay marka maxay noqonaysaa waa imbalance suuq mar walba waxa weeye Facebook ku jira inaad iska fiirisid way qurux badan tahay suuq muxuu ku jira imbalance correction-ku halka ku dhamaado half percentage suuq correction-ka uu soo laabto kadibna waxa weeye uu saabay ku aad haduu la yiraahdo marka lacagtaasna saasan ka sugaynaa insha Allah hadii kale maxaa suuq ka dhaa hadii kale waxa suuq ka dhaa inta zone-ka inta la jibiyo waxa weeye retest lagu sameeyo kadibna waa qaadan ka dhaa marka lacagtaas waxa weeye isha aad loogu hayaa haduu la yiraahdo hadii maalinta soo socota waxa weeye news uu soo baxo ama waxa weeye wax dollarka waxa weeye ay lacagta dollarka la yiraahdo waa laga adkaaday waxa COVID-19 oo kale adiga mar walba waxa technicalkaaga waa inaad waxa weeye ku salaysaa oo kale technicalkaaga waa inaad ku salaysaa mar walba fundamental laftiisa waa inaad awood waxa weeye suuq awoodiisa waa technical laakiin sidoo kale fundamental kana suuq uu bedelaa waa inaad ka taxaddaa GBP kad baan fiirin doonaa insha Allah haduu la yiraahdo GBP kad almost waa down lacagta waa lacag down trend ah almost wax walba oo down trend ay ku noqon kartaa way sameysay hadii aan fiiriyo daily time frame baan eegaya insha Allah haduu la yiraahdo daily time frame ka maxaa ku muuqda daily time frame ka almost waxa ay muuqda suuq waxa weeye in uu halka ka soo sameystay double top inuu soo sameystay sidoo kale selka muxuu halka suuq uga soo aaday sababta uga soo aaday waa maxay sababta uga soo aaday waxa la jibiyay opposite support baa la jibiyay waxa la sameeyay liquidity hole baa la sameeyay equal highs baa la sameeyay kadibna waa laga soo daatay meesha baa la tagay hadda maxaa la sameynayaa second entry baa la sameynayaa insha Allah marka second entry-ga marka structure ahaan hadda suuqan maxaa wajeynaa marka structure ahaan suuqan xataa wuxuu tusayaa waxa weeye suuqan inuu yahay down trend maxaa yeelay in meel kore la tagay lagu tagay 1 iyo 2 iyo 3 lagu tagay kadibna waxa weeye sugayna lacagta inay soo hoobato halkan waxay noqonaysaa waa meel halkaas oo kale ka soo qaad meeshaas oo kale in la yimaado triga la yimaado kadibna waxa weeye hadhow buy mustaqbalka la aado laakiin anagu hadda waxa soo dhan ma sugaynaa waxa rabnaa inaan fursad seel aan ka qaadano marka waxaan tagayaa 4 hour baan tagayaa 4 hour ka fursadda hadda ku jiro waa maxay almost suuqan wuxuu sameeyay wax walba oo seel ugu aadi karay maxaa yeelay halkan waxa ku muuqata inuu sameeyay head and shoulder suuqa oo seel ku aadi karo kadibna suuqa uu soo dhici doono insha Allah haduu la yiraahdo marka maxaan intrigeenu waa xagee almost suuqan intrigu uu bixiyay waa maxay halkan waxa suuqu wuxuu jibiyay equal low buu jibiyay kadib waxa weeye suuq muxuu sameeyay uu laabtay waxaan ka wadaa wuxuu jibiyay suuqu opposite zone buu jibiyay kadib suuqi waa laabtay xagee buu ku laabtay wuxuu ku laabtay supply zone-kii buu ku laabtay supply zone-kii waa ka suuqii intriga hadda qofkii halka ka soo galay almost waxa weeye faa'iido ku jira hay'ad waxa loo jibiyay opposite support-kii baa la jibiyay suuq waa laabtay liquidity buu sameeyay liquidity hole-kii buu sameeyay kadibna suuq halka wuxuu ka sameeyay equal high 1 hour baan tagaynaa insha Allah waa isla arki doonaa haduu la yiraahdo kadib muxuu sameeyay si fiican hadda u fiirsan equal high qurux badan buu halka suuq ka sameeyay kadibna meesha markii la tagay maxaa dhacay fiirsi ilaahay man ku dhaarshay istiraatiijiyada waxa way powerful way suuq 77 buu meesha ka soo dhaca marka waxa kale ku sii saaciidaya suuq waa down trend inuu yahay hadaa fiirisid trailing-ka hadaa fiirisid almost suuq trailing-ka waa jibiyay test uu ku sameeyay una soo dhaca halka waa iska dhigo trailing-kaaga kadib waxaad tagtaa 1 hour ka tag
1 hour-ka markaad tagtid insha Allah haduu la yiraahdo 1 hour-ka tag kadib waxa fiirisaa waxa weeye sidoo kale counter trend line ma ijibi counter trend line waa kan suuq waxa weeye bayga yarka u celiyay trend line ka saa u saaro waxa sugaysaa trend line ka in lagu jibiyo haduu la yiraahdo qaabkee marka halkaas uga sugaysaa halka waa zone waa meesha waxa weeye suuq maanta dhan bay u ka aadayay laba jeer buu bay ka aaday meesha inuu jibiyo almost inuu jibiyay waxaan sugaynaa sidoo kale inuu trend line ka noogu daro kadibna uu soo laabto marka haddii aad fiiriso sidoo kale as supply hadaa u fiiriso sidoo kale waxa weeye opposite support-iga waa la jibiyay in la soo dhaco kadibna meesha waxaan fiirin doonaa tasal lagu sameynayo iyo supply confirmation ka helaynaa waa inaad suuq adiga intrigaaga aad wax walba isku daydaa sa intri u heli lahayd waa inaad fiirisaa marka halkaan oo dhan maxay ku noqonaysaa halkaan oo dhan asay waxaan fiirin doonaa markaan supply and demand-iga waxaan ka rajaynaynaa in halkaan waxa opposite support-igan la jibiyay waa la jibiyay kadib suuq uu trend line-ka ku daro kadib meeshaan oo dhan maxay ku noqonaysaa halkaan oo dhan waxay ku noqonaysaa waa supply weeye waa maxay yeelay halkaan waxa ka dhacay halkaan hadaa fiirisid meeshaan oo dhan hadda waxa weeye waxay noqonaysaa halkaan oo dhan waxay noqotay waa supply waxaan ka wadaa demand halkaan maxay noqonaysaa supply bay noqonaysaa intaan oo dhan maadaama suuq uu laalaabad meeshaan ku sameeyay laalaabad ku sameeyay kan dhaliskaan oo dhan baa waxay box-ka gashanaysaa marka intriga macnaha intriga ka saacidaysa inaa intri qurux badan heshin kadib meesha haddii suuq la soo jebiyo maxaa dhacaya meesha haddii la soo jebiyo tasiga xagee lagu sameeyaa zone-kii iyo macal trend line-kii zone-kaas xogee noqonayaa big and tasiga markaan fiirinay wuuna saaciday sidoo kale supply and demand-gii waana saaciday kadib suuq waxa weeye tasiga haddaan ka helo insha Allah haduu la yiraahdo waxaan ka soo qaadan doonaa ilaa TB-ga oo ah ilaa halkaasaan ka soo qaadan doonaa marka ilaa halka waxa weeye TB-ga ii noqonaysaa insha Allah haduu la yiraahdo marka inaa aad u fahanteen ma rajeynayaa waa istiraatiijiga waxa weeye waa hadda xataa haddaa fiirsaan macallimiin badan oo isticmaali jiray istiraatiijiga waxa weeye market structure bas oo waxa jira u wareegay ayagoo market structure-ka isticmaalaya haddana confirmation ka raadiyay gorilla trading xoogaa waxay arkeen in mataqaanaa uu mataqaanaa waxyaalo badan suuqa ka fiiranayo oo istiraatiijiyadiisu xoogaa wareer ay tahay haba iska fiicnaata hadday rabtee oo maadaama uu price action uu ku trade gareynayay kadib qaar waxaa jira haddana kusii darsaday waxa weeye supply and demand-iga hadda haddii waxa weeye macallimiin badan baa jira hadda macallimad la yaamno xereeray qofkii yaqaan baa yaqaan waxa weeye waxay isticmaali jireen market structure kadib waxa weeye market structure waxa ku darsatay gorilla and I think inuu anfici waayo oo intri uu ka siin waayo la isku haleyn kara 100% hadda waxay isku isticmaashaa waxa weeye supply and demand-igan iyo market structure-kii runtii ama dhawaato anuu wareegaya Instagram waxa weeye baan arkay iyadoo isku isticmaalaysa almost aniga markaas waa isticmaalayay kadib waxa ay soo baxday waxa weeye mar walba waxa intriga xoojinayo qofku hadduu raadiyo suuqa ka raadiyo inuu helayo ayaduna ay heshay waxa weeye waxa suuqa intriga ka xoojinaya marka adinkana waa rajeynaya insha Allah haduu la yiraahdo supply and demand-igan as a confirmation inaa isticmaali kartaan haduu la yiraahdo aan ka faa'iidi doontaan marka lacagtaas sale-ka ka faa'iideysta insha Allah haduu la yiraahdo euro JPY baan fiirin doonaa insha Allah haduu la yiraahdo euro JPY waxaan ka sugaynaa insha Allah 4 hour-ka ilaa daily time frame-ka aan tago kadib 4 hour-ka maxaa ii muuqda 4 hour-ka almost suuqa trending-giisu waxa weeye waa sell suuqa trending-giisu waa sell laakiin si possibility suuqa uu bay ku aadi kara waa jidha badanaa JPY meesha haddii ay dhaqaaqdo hadda trend line-ka aan fiiriyo sidoo kale suuq almost trend line kii wax yar buu jiraa ilaa halkaa way trending-gii laakiin se sub opposite zone la jibiyay kadib suuq soo laabtay inuu meelahan waxa weeye halkaas uu ka dhigto waxa weeye neckline ay u noqoto kadibna uu ka soo laabto kadibna halkaa uu bay ka aado waan u badinayaa insha Allah haduu la yiraahdo waana isla arki doonaa trendiga saaro trendiga haddaa saaratid trendiga halka haddaa ka saaratid sidoo kale 4 hour-ka tag 4 hour-ka maxaa ku muuqda 4 hour-ka haddii wax yaroo dhimaan aragtid oo dhimaan suuqa uu joogo waxa macquula inuu haddii mar walba waxa la fiiriyaa trendiga suuqa la fiiriyaa hadda waxaa jira demand and supply zone ku fashilmaysid baa jira hadda hal mar adinka horaale aan soo laabto waa ku sii socon doonaa euro USD aan fiirin doonaa euro USD waxaan fiirin doonaa supply and demand lagu fashilmay waan ku tusay laakiin waxa keena waxa iska fiirinayaan waxa weeye trendiga suuqa bina iska fiirinayaan sorry waxa yar khadka iga xun baa u maleynayaa hadda halkaan oo kala fiiri supply and zone lagu fashilmay waa maxay inkastoo uu soo dhaqaaqay suuqu uu soo dhaqaaqay sababta loogu fashilmay waa maxay waa tan suuq muxuu jabiyay opposite support uu jabiyay uu soo laabtay liquidity uu samaystay equal high uu samaystay kadibna halkaan maxay ahayd fiiri halkaan waxay ahayd
halkan waxay noqotay supply zone bay noqotay kadib maxaa dhacay suuq waa soo daatay xogaa uu soo ixtiraamaya mararka qaarkood wuxuu soo daatay ilaa 40 bib soo daatay kadibna waa lagu laabtay qofkii ama SL baa lagu dhuftay ama waxa weeye break even baa loo saaray sababtu waa maxay sababtu waxa weeye wuxuu iska fiirin trendiga suuq iska fiirin trendiga suuq already waa la jabiyayba marka confirmationskaaga inaad ku darsatid baa la rabaa supply and demand marka ka qaadanaysid supply and demand confirmation marka ka qaadanaysid suuq waxa weeye inaad iska fiirisid waxa weeye meesha jihadu aadi karo inaad iska fiirisid jihadu suuq aadi karo inaad iska fiirisid marka iska ilaaliya hadduu la yiraahdo yuriyo sideedan ku soo ceshanaynaa marka waxyaalahaas oo kale weligaa trendiga suuqa iska ilaali trendiga suuqu wuu ku dilayaa marka kadib maxaa xagee noo mareysay waxay noo mareysay euro JPY kadib sorry guys khadka xawaa iga yar baa umanaynaya marka maxaa dhacay trendiga suuqa lacagta euro JPY trendiga suuqu waa down trend weey trendiga suuqu waa maxay waa down trend waana loo socdaa almost anigu waxaan filayaa meeshan waxa weeye waxa ku jira equal high sir baa ku jira in la cunay u badan tahay laakiin mar walba lacagtan mar walba waa tii waxa weeye soo aada inay buy meesha aado sababtu waxa weeye almost suuq waxa moodaa trending inuu soo bedelanayo oo moveskiisa dhan u dhameystay lacag soo daashay weeye halka daa fiirisay waxa weeye trending uu ka soo jibiyay 1 iyo 2 iyo 3 laga yaabaa inuu waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 meesha ku yimid almost waxa weeye jihada suuqa mar walba waa la iska fiiriyaa jihada suuqu uu up trendkii uu soo jibiyay 1 hour kiyo laakiin kii waxa uu dhiman 4 hour ka u dhiman marka 4 hour ka halkan waxa weeye opposite zone baa la jibiyay kadib maxaa dhacay kadib suuq waxa weeye equal highs ma samaystay almost meeshan waxay noqonaysaa equal high bay u egtahay inay noqonayso kadib xagee weeye waxa weeye zoonka caadiga suuq uu socdo zoonka caadiga suuq uu socdo xagaa weeye marka meeshaas halkaas suuq uu socdaa marka waxa ka taxadadaan insha Allah haduu la yiraahdo meesha waxa ku jira trap baa ku jira halka markii la jabiyo korka loo jabiyo haduu la yiraahdo halka ka soo seel gareeya laakiin seelka muxuu noqonayaa seelka ma waarayo sababtoo ah almost maxaa waxa weeye suuqan waxa uu soo jawi bedeshay marka wuxuu sameynayaa almost wuxuu jabiyay suuqa markii suuqa laga raadinayo buy ma maxay suuqa inuu opposite zone waxa uu jabiyaa waxa weeye resistance almost marka hadduu halka jabiyo oo suuq uu soo laabto almost waxa weeye suuqa meelahan oo kale maadaama almost halkan suuqan lowerkan u dambeeyay lowerka halkan waxay ahayd low ah hoos baa loo jabiyay dib baa adana loo soo jabiyay marka suuq almost waxa moodaa inay buyers soo galeen marka haddii halka la yimaado halkan haddii la yimaado fursad buy aba ka raadin karaan waxay ku noqonaysaa demand zone bay noqonaysaa halkan equal low ku jira yar eedan wala soo cuni doona insha Allah hadii la yiraahdo kadibna suuq marka inuu buy saa ku jabiyo meesha ay noqoto marka garab madaxii halkan kadibna waxa weeye garabkii kale waxaan ay noqdaan oo ay noqoto waxaas in aan shoulder baan sugeynaa hadii la yiraahdo marka istiraatiijiga weliga ayaa lahaa istiraatiijiyada waxa weeye isku raadi suuq waxa weeye mar walba baagta simadan samee istiraatiijiyada waxa weeye demand and supply labada bri oo suuq waxay yahay waxa ku samaysaa waxa raadisaa suuqa waxa weeye baagtasin badan ku samee waxa ku soo baxaya interest fara badan baa ku soo baxaya GBP NZD waan ku xijinayaa GBP NZD runtii waa iyada seelkeeda waxa weeye ma sha Allah seelkeeda waa banaanka oo qurux badan tahay runtii lacagtan trendiga suuqana waa la jabiyay almost down trend weeye aan soo bilaabayna insha Allah iyadana hadii la yiraahdo almost badana waxa arkaysaa in halkaan oo kale waxa weeye qof intuu dhigto tastiga halka ka sugaya kadib waxa weeye 99 ka markii xagga la yimaado kadib soo seel gareynaya waxa inta saa loogu laabto rejection ku dhufto kadibna in la soo dhacayo sababta keenaysa waxa weeye halkaas oo kale waxa laga yaabaa marka qaarkood inuu demand zone yar ku jiro waxa kale supply zone yar uu ku jiro trendiga suuqa waa la jabiyay si fiican hadaa u fiirisaan almost halkaas waxa la soo sameeyay almost halkaas suuq waxa weeye uu ka soo dhamaaday oo double top baa la sameeyay double top marka anagu soo trade gareyn jirnay neck lane markii la jabiyo oo lagu soo laabto baa intrigeena ka qaadan jirnay marka baatankaasna saas aan u trade gareyn jirnay suuquna baatanka almost uu noo sameeyay marka hadda maxaan fiirinaynaa almost waxa la jabiyay halkan maxay ku noqonaysaa marka fiirinaysid demand zone marka supply zone marka fiirinaysid suuq inuu jabiyo opposite supporting almost uu jabiyo opposite supporting waa kan inta markuu suuqu jabiyay kadibna inuu suuqu confirmation maxaa ka haysanaa trend link xataa in la jabiyay marka suuqu inuu meesha noogu soo laabtaan suweynaa insha Allah hadalko yar haduu la yiraahdo maxaa yeelay
sidoo kale halkaan ma in noqonaysaa sport break and testiga ma igu aadaysaa of course way kugu aadaysaa waxay noqonayaanba isku meel bayba noqonayaanba haddaa fiirisid isku meel ayayba noqonayaanba oo haddaa fiirisid meesha waxa weeye hadda break and testiga uu ka dhacay oo la soo laabtay haddaa rabtid ilaa halkaa waa ka qaadan kartaa laakiin se mar walba waxa weeye asalkaaga oo kale meelahaas kale iska dhiga waxaa laga yaabaa supply zoneka in lagu laabto oo almost sababta loogu laabanayo waaba tanbaba halkaan haddaa si fiican usoo dhaweysid waa kan kanaladaas oo dhan waxa order block u samayso hadda halkaa in suuqa halka aad ka seel garaysid meesha ama meesha inaad seel garaysid iyo inaad halka ka seel garaysid waa same waxba isma dhaamaan kadibna waxa weeye suuqa waa kasoo faa'iidaysanaysaa markaasna asalkaaga meelahaas kala dhiganaysaa ama halkaas kala dhiganaysaa siblaan wax yar korkiisa marka intaas lacagtan runtii aad bay wallahi runtii u qurux badan tahay oo haddaa fiirsay xataa wuxuu sameeyey suuqu correction qurux badan buu sameeyey halkan correction wax running journal buu sameeyey running journal waa maxay suuq muxuu taabtay waa correction laakiin haddana waxa weeye journal camal buu weeye running journal weeye 1 iyo 2 waa la taabtay 3 marka la tagay waxa lagu tagay qaab structure lagu tagay oo 1 iyo 2 iyo 3 baa lagu tagay kadibna waxa weeye waa la soo daatay marka halka waxa weeye haddii lagu laabto areadaas haddii lagu laabto insha Allah isha ku haya fursad seelo aad u qurux badan baa ku jirta fursad seelo runtii qurux badan baa ku jirta marka waxaan tagayaa GBBCHF ayadana fiirinayaa GBBCHF fursad ku jira suuq mar walba supply and demand dhiga wuxuu ku fiican yahay entry maba waayaysidba supply and demand dhigu waa entry soconayaba suuqii market structure-kiisa supply zone-ka hadda isku isticmaashid entry maba waayaysidba boqolkiiba 99 entry ma waayaysid marka GBBCHF xataa fursad seel ku jira hadii la yiraahdo inkastoo lacagtaan oo kale hadda ay sameynayso waxa weeye qaab noocan oo kale ay ku socoto runtii hadda laakiin se wali waxba u dhiman in waxa weeye halkan waa demand zone-ka in la yimaadaan suweynaa insha Allah hadii la yiraahdo marka kadibna in buy laga aado meeshaas laakiin hadda waxa weeye inkastoo lacagtaan runtii aysan lacag aad u qurux badan aysan ahayn oo ay ku jirto correction noocan oo kale ah trend qurux badan lacagtaan ma aha lacagtaan trend aad u qurux badan ma aha laakiin se 4 hour oo kale hadaan tagno almost suuqa halkan intrigan qofkii halkan ka seel gareeyay intrigan muxuu ku helaa fiir halkan ilaahay markuu dhaarshay suuqa halkan muxuu ku sameeyay break and test caadi uu ka sameeyay laakiin si dadka break and test waa laga qadaysiiyay suuqa ka qadeeyay suuqa waxa la siiyay 65 bid baa la siiyay laakiin waxa dhacay suuqu sida caadiga ah qaanuunku ku socday muxuu ahaa halkan wuxuu jibiyay trend line jibiyay meeshuu trend line uu ka jibiyay sidoo kale demand zone baa yaalay opposite marka opposite waxay ahayd support halkan la jibiyay baa suuqu waa soo laabtay halkan muxuu ka jibiyay equal high-gan uu sameeyay sidoo kale liquidity hole-kii uu sameeyay kadib maxaa dhacay waa la yimid runtii waxa weeye hatta maxaa lagu tagay counter trend line baa lagu tagay 81 bi waxa weeye qofkaas wuxuu dhigay ka faa'iideysan karay qofkii qaanuunka garanayay marka halka markii la yimid markay structure-kaaga waa isticmaalaysaa intrigina waxba ku darsata adig inta maanta maxay ku yeelaysaa inaad samaysid inta yarta inaad samaysid waa suuq waa sida markay structure marka aan la isgaranayso kale wax cilada iyo wax wareera ay ku keenaysa malaha halka maxaa lagu yimid counter trend line baa lagu yimid double bottom confirmation baa xataa heshay double top baa heshay double top ka markaa heshay suuq double top kii neck link-kiisa waa soo jebiyay maxaan ku trade garaynaa neck link markii soo jebiyaan suuq trade garaynaa as a supply and demand suuq halkan muxuu ka siiyay halkan wuxuu ka siiyay supply yar muxuu ka siiyay sidoo kale supply-ga maxaan ku helnaa waxa la jebiyay opposite support-igi waa la jebiyay kadib maxaan sugeynaa supply-gii iyo break and retestigii meeshii isku meel bayba noqdeenba in halkaa lagu soo laabto insha Allah kadibna suuqa aan ilaa intaa kasoo faa'iideysano ilaa halkaa runtii lacag badan baa ku jira marka waxa weeye igana raaliyaada waxa weeye banaanka waxa laga maqlayaa qeyla laga maqlayaa waa iska reer waxa weeye deriska oo maartay maqan habibaat dhii waxay leeyihiin marka qeyladooda waxa aad bay u badan tahay inay soo gaaraysaa oo malaynaya ka raaliyaada marka lacagta waxaan ka sugeynaa in halkaa lagu laabto kadibna waxa weeye selka waa trendy break and retest ahaan supply and demand dhigi oo ixtiraamay wax walba waa la ixtiraamay marka halkaas aan ka sugayaa insha Allah hadii la yiraahdo ayadana waxaan ku xujinayaa NZD/USD lacagaha dhan waxa weeye waan falanqeeyay runtii hadda waxa saa u dhiman lacagtan ayadana waxaan ka sugeynaa fursad baa ka sugeynaa insha Allah hadii la yiraahdo sababta oo sugeynaa waxa weeye hadii daily time frame aad fiirisid sababta ku soo kala wareegtay waa maxay daily time frame sababta ay ku soo kala wareegtay waa maxay kow markay structure-kii waan soo analyze garanayaa waxaan dhahayaa halka maxaa iga dhacay 1 iyo 2 iyo 3 baa halka ka dhacay 1 iyo 2 iyo 3 ga ku aadamay wuxuu ku aadamay meel demand zone ah ku aadamay demand zone meesha inay tahay maxay cadeynaya meesha demand zone ku shuruudaha suuqa laga fiirin jiray shuruudihii mid kamid suuqa ma sameeyay almost waa sameeyay halkan maxay ahayd opposite support la jibiyay bay ahayd opposite
halkan waxay ahayd opposite resistance baan ka wadaa la jibiyey bay ahayd kadib suuqu waa soo laabtay waa soo dhacay markuu soo dhacay sidoo kale muxuu sameeyey equal wuxuu sameeyey equal lows uu sameeyey kadib equal low halkaa dad ka baygarayay waa la cunay bay baa la soo aaday halkaana laga soo dhaqaaqay tebi baa laga soo dhaqaaqay waxa laga soo dhaqaaqay 189 bib 189 bib ninkii waxa uu iskala socon karay suuqa marka hadda trendiga hadda suuqa saaran halkaas trendiga suuqa saaranayna waxa weeye trendline up trend weeye marka waxaan sugaynaa inta baygan suuqa uu soo dhaqaaqay in la mida inuu suuq waxa weeye uu aado bay aado insha Allah dulaa yiraahdo marka fursadda bayga dadkii bayga koobaad u dhaafay bayga labaad ay ka faa'iideysan kareen runtii waxa weeye bayga labaadna fursad qurux badan buu sameeyay oo hadda fiirsidoo kale bayga labaad dad ka faa'iideysan waxay u faa'iideysteen hadda fiirsid brig artistiga way uga faa'iideysay brig artistiga kaliya train in lagu jabiyo maaha waa in zone laftiisa lagu jabiyo brig artistiga noqon karnaa waxa dhacay waxa bay la aaday 79 bii bay la aaday halka marka intriga koobaad waa idhaafay ka labaad ma ka faa'iideysan karay asii dhiman aan sablaay ma uga faa'iideysan karay intriga labaad waa isla fiirin doonaa insha Allah dulaa yiraahdo hadda waxaan ka rajeynaynaa 1 hour baan tagayaa 1 hour meesha suuq muxuu bay uga aaday waan isla eegi doonaa insha Allah sababta waxa weeye halka uu uga aaday suuqa uu bay uga aaday runtii waxa weeye khadka iga xun sorry sababta uga aaday waxa weeye waxa la jibiyey equal waxa la jibiyey support zone kii baa la jibiyey equal waxa la jibiyey resistance soo jeediyay suuq sameeyay opposite resistance baa la jibiyey kadib maxaa dhacay kadib waxa weeye halkan suuq muxuu ka sameeyay halkan waxay ahayd zone adag oo demand abay ahayd kadib maxaa dhacay equal lows yarna waa dhacay halkan waxa ka dhacay waxa weeye liquidity hole baa la jibiyey waxa walba suuq halka uu ka sameeyay inkastoo aana waxa weeye halkaas halka aana waxa weeye trade badana aana ka qaateen maadaama meel xoog iska kor ay tahay laakiin si qofkii ka faa'iideysan karay uu ka faa'iideystay hadda marka waxaan rajeynaynaa waa maxay hadda waxaan rajeynaynaa insha Allah in markaan waxa weeye si toos ah meeshan lagu soo laabto dulaa yiraahdo in si toos ah meesha lagu soo laabto oo suuqa uu ka aado uu markaas dhimaan caadi ah oo mataqaana la isku hubo ay noqoto sababta uu noqonayso waa maxay waa isla eegi doonaa insha Allah dulaa yiraahdo waan isla eegi doonaa insha Allah sorry khadka xawaa iga yar istaagaya caawa marka sababta uu noqonayso waxa weeye hadda fiirsidoo kale halka maxay ku ahayd fiir halka waxay ku ahayd zone bay ku ahayd marka hadda waxa weeye waa break and retest amal macnaha break out la sameeyay zone kan retestiga in loo sameeyo marka retestiga meesha lagu sameynayo iyo demand zone ku maxay isku jiraan ma fiirin doonaa insha Allah break and retestiga iyo demand zone ku waxba isku ma jiraan halka trade-ka waa ka qaadan karnaa oo break and retest noqon kartaa hadii kalena wuxuu sameynayaa fiiq yar buu halka ku sameysanaya kadibna uu laabanaya suuq buuxinaya marka yarka uu soo buuxinaya kadibna suuq saas uu ku aadaya bay ku aadaya markaas oo kale marka break and retest supply demand dhigaysa isku saaran yihiin waa caadi kan waa ka qaadan kartaa dhimaankan waa ka qaadan kartaa asalkaaga xogaa waa ka siinaysaa meelahaas oo kala sii dhigan kartaa direct 38 bay noqonaysaa wax weyn ba maaha marka insha Allah ka faa'iideysta runtii fursad NZD/USD qurux badan bay leedahay laakiin dollarka asbuuca news weyn baa soo baxaya waxa ay si saaciday NZD/USD na waxa way u qaato waxa weeye buy trendiga suuq waa la jibiyay si fiican u fiiriyay trendiga suuq waa la jibiyay marka trendiga suuq marka la jibiyay maxaa ku xiga intaas oo confirmation baa haysta break artistigaas ku xiga break out baa la sameeyay zone waa la jibiyay break out baa la sameeyay trailing waa la jibiyay artistigaas ay wuxuu insha Allah dulaa yiraahdo halkaas waxa weeye zone ka artist marka lagu sameeyo waa ka qaadan karaa si fiican aan soo dhigo halka asaas weeye halka marka lagu soo laabto waxa laga yaabaa inuu fiiq yar samaysto halka waa ka qaadan karaa hadii kala dhiman ni waa zaaran yahayba almost waxaan dhiman buu ku noqon karaa hadaa si fiican hadii aad tagtido kala dheeliga waxaan dhan dhiman bay noqonayaan meeshaan dhan box buu ku noqonayaa dhiman marka waxa weeye fursad qurux badan maarinta ku jira dulaa yiraahdo newskaas aad baa looga taxadiray wax walba noqon karaa waa la soo jabin karaa newsku maadaama asbuucan COVID-19 baa suuq ka buuxa marka aad looga taxadiray insha Allah dulaa yiraahdo waxaan tagayaa insha Allah Euro AUD ayada waa boobsiinaya dulaa yiraahdo Euro AUD maxaa ku xiga Euro AUD maxay sameynaysaa Euro AUD runtii fursad yar oo sell ah bay sameynaysaa sababtoo ah daily time frame-ka suuqu demand zone ka soo dhaqaaqay supply zone ka soo dhaqaaqay sababtoo ah waxa weeye hatta weekly hada fiirsido kale weekly hada fiirsido waxay noqonaysaa suuqan down trend ku socday down trend-kiisu suuq ugu socday suuqu waxa weeye soo dhacay halkan dadkii waxa weeye halkan waxay ahayd zone bay ahayd
dadkii break and retestiga waa laga qadaysiiyey way soo dhacday suuqii kadib suuq waa soo laabtay marka haddii break and retest meesha markii lagu soo laabanayo waa inaad taxadir badan muujisaa mar haddii laga qadaysiiyo marka labaad waa inaad taxadir badan aad ka muujisaa kadib maxaa dhacay kadib suuq muxuu jabiyey equal wuxuu jabiyey equal lowgii equal wuxuu jabiyey opposite supportigi wuu jabiyey soo laabtay liquidity buu samaystay liquidity walkii buu samaystay equal high buu samaystay xaggan xataa mid labaad buu ka samaystay kadib weekly time daily time frame tag daily time frame muxuu sameeyey markaa daily time frame wuxuu sameeyey intaan supply-ga la imaan maxaa dhacay intaan supply-ga la imaan waxa dhacay halkan waxa weeye equal highs baa ku jiray 4 hour ka danta equal high caadi oo loo jeeday noqonaysaa halkan rejection-ka waa equal high caadi ah baa dhacay kadib meeshii waa la tegey markay structure ahaan maxaa ka haystaa markay structure waxa weeye waxaan ka haystaa suuq meeshaas in waa xalaa waa fake structure baa kan oo kale waxa la yiraahdaa suuq markuu saas kale u soo socdo fake structure weeye waxa laga yaabaa 1 iyo 2 iyo 3 inaad ku raadisid laakiin maanta dhow kaa diido marka fake structure kaasna insha Allah baatanada waan dhigan doonaa hadii la yiraahdo kadib maxaa dhacay kadib meeshii waxa la tagay demand-kii baa la tagay supply zone-kii baa la tagay kadib maxaa dhacay equal high-gii halkan waa la jabiyey waa la soo si fiican baa loo soo dhaqaaqay kal iyo laaba waxa weeye suuq halkan laga soo qadaysiiyey dadkii inta laga soo siiyey waxa weeye 279 bib oo aad marka structure-kii iyo inta aad ku darsatay aad garanaysay maxaa dhacay markaa maxaa dhacay suuqii almost muxuu sameeyey suuq muxuu ku socdaa suuqii wuxuu ku socdaa in halka waxa weeye uu suuqu u sameeyey imbalance correction uu sameeyey imbalance kale uu sameeyey correction yar uu sameeyey inuu halka u yimaado meeshan meel suuq uu ka laaban karo marka target halkaas noo noqonaysa laakiin suuq muxuu sameynayaa biri insha Allah dula yiraahdo maadaama waxa weeye halkan uu ka jabiyay maadaama halkan ay tahay meel waxa weeye opposite support oo la jabiyay suuqna down u yahay xaqiiqsatay oo correction caadi uu galay kadib in waxa weeye demand zone-ka lagu laabto insha Allah dula yiraahdo demand zone-ka irtaas lagu sameeyo marka low time frame baan ku arkaynaa insha Allah dula yiraahdo low time frame war hawarkan tagaynaa meesha ku noqonaysa intriga meesha intriga ku noqonaysa baan arkaynaa dula yiraahdo intriga waxa ku noqonaysa waxa ka fiirin doonaa as break and retest ahaan zone-ka la jabiyey suuq almost halkaas laga yaabaa ka qaadan lahayd halkaas as break and retest ahaan uga qaadan lahayd laakiin aqliyadda waxa weeye halka inay tahay meeshaas demand inay tahay halka daafiis waa break and retest-ga oo qadin ka dhaw hadii lagu laabto waa soo qaadan ka dhaw sidoo kale halkan waxa weeye markii la yimaado waa zone-kii hadda muxuu u jiraa wuxuu u jira malaha supply zone-kii iyo waxa weeye isaareeyeen break and retest waa confirmation waxa weeye runtii aad u qurux badan weeye halkaas waxa weeye ka soo qaadanaysaa waxa isma dhibaysid asalkaagana xaggaas kala dhiganaysaa marka saas hay'adana looga soo qadiyay insha Allah dula yiraahdo lacagta runtii waa lacag aad u qurux badan weeye marka mar walba inaad adeegsatid waxa weeye confirmations badan inaad adeegsatid way qurux badan kadib Eurocad haddaan fiirino iyo Eurocad baan u dambaysiinaya goldiga aan bogsinaya insha Allah dula yiraahdo Eurocad ayada maxaan ka sugeynaa insha Allah Eurocad ayada waxaan ka sugeynaa waxa sel baan ka sugeynaa insha Allah dula yiraahdo sababta uu seen waxa weeye double top ka way ka soo laabatay daily time frame dilta halka double top way ka soo laabatay double top runtii qurux badan weeye way soo sameysay sidoo kale suuq waxa weeye markuu halka ku soo laabanayay waxay sameysay equal low meesha opposite support way jibisay suuq waa soo laabtay halka maxay ku ahayd halka waxay ku ahayd waxa weeye meel imaan ay ku noqon kartay halka qofka ka soo qadeeyay wuxuu ka soo helay meeshaas oo kale suuq markuu laabtay wuxuu qof ka soo helay adi 96 bib ka soo helay laakiin suuqan deeqaadkii ku socotay oo halkaana waxay ahayd sababtu baaga meesha suuq ugu aaday waxa weeye halkaana waxay ahayd meel ah demand zone ah sidoo kale opposite zone-kii la jabiyey opposite zone-kii la cunay suuqu tagay markuu soo laabanayay equal lows halka qurux badan u sameeyay kadibna waxa weeye suuq uu soo dhacay halka uu yimid intriga koowaad waxa weeye qofkii intriga koowaad ka faa'iideystay halka uu ka galay runtii oo faa'iido fiican uu ka sameeyay ilaa intaas suuq dhaqay laakiin sidoo kalena halkan maxaa dhacay inta la ixtiraami waayo waa inaad fahantaa halkan waxa la jibiyey opposite zone baa la jibiyey oo supportiga ah halkan demand zone way ahayd markii aad fiirisid waxa weeye istiraatiijiyada laakiin waxa qaladay halka maxaa uga seel garaysay adigu xogaa waa laga qadaysiiyey statement waa laga siiyey laakiin waxa qaladay fiiri waxa qaladay waxa weeye waa trendigi suuqa qaladay suuq meel uu jabiyey uu soo laabtay trendigi buu retest ku sameeyay sidoo kale muxuu ku sameeyay zone-kii sidoo kale muxuu ku sameeyay zone-kii wuxuu ku sameeyay retest ku sameeyay kadibna waxa weeye suuq wuxuu aaday saas wuxuu ku aaday buy kadib maxaa dhacay
kadib suuq waxa weeye wuxuu soo dhamaystirtay selkii oo opposite waxa weeye halkan hadaa fiiriyo sidoo kale waxaa la jebiyey suuq markaas sel garanaysa maxaa la rabaa inaa macnaha sel marka u qaadanaysid opposite supportiga in la jebiyo soo laabto suuqu halkan equal high uu ka samaysto trending guud hadaa fiirisidna xataa waxa weeye almost suuq sel trending guud oo dhan waa sel marka hadda muxuu ku jiraa suuqu hadda waxa weeye wuxuu jebiyey hadaa fiirisid waxay ahayd meeshaas meel adag oo waxay ahayd resistant ah waa la jebiyey waa lagu soo laabtay brick aragtisa lagu sameeyey waa laga soo daatay hadda halka intee laga soo daatay debi baa laga soo dhacay 49 bi baa laga soo dhacay ma brick aragtista caadi ah marka 40 inta markii laga soo dhacay halka waxa ka heshay counter trend line baa ka haystaa counter trend line-ka inta lagu soo jebinayo waa suuqa dhac counter trend line-ka markii lagu soo jebiyo halkaana maxaa ku jira haddii meeshan laga soo daato oo bri ilaa caawa la soo jebiyey meeshan halkan waxay ku noqonaysaa supply zone bay ku noqonaysaa in supply zone meel iskama dhahna ilaa xoog looga soo daato halkan inaad supply zone ka dhigatid marka suuqu uu soo dhaco supply zone maxaa wax ka wadaa supply zone ha wuxuu suuqu sameynayaa opposite wuxuu jebiyey waxa weeye supporting uu jebiyey uu soo jebiyey meeshii ku soo laabtay brick artist ahaana waxa weeye trend line-ka waa la soo jebiyey waa laba confirmation baa haystaa kadibna waxa weeye suuqa halka aksoo sel garaysa aniga istiraatiijiyadda isticmaalo dhan waa combination kala isku daray weeye aniga ka soo saartay istiraatiiji waa raadiyey baaktisin badan baa sameeyey meel walbaan galay marka adinkana waxa weeye waxaan kula talin lahaa runtii inaad suuqa baaktisin badan ku samaysaan oo suuqa ku laabataan oo mataqaanaa wax inay shaqeynaya kadibna aad ka soo saarataan haddii la yiraahdo lacagta markaa seelka saas uga faa'iideysan kartaan haddii lacagta meesha ay ka laabato waxa ogaataan in caadi halkan waxa weeye dhabar tabka ay kasoo laaban doonto insha Allah haddii la yiraahdo kadibna ay soo dhici doonto labada meelood baa ka fiirin kartaan insha Allah golliga u dambaysiinaya golliga waxaan ka rajeynayaa asaga waxa weeye fursad buy ah maadaama coronaviruskii caseski uu soo batay inuu waxa weeye iska sii wato buygiisaas haddii la yiraahdo haddaan dhiliido golli almost wuxuu jebiyey trendigi suuqa wuu cunay uuna jebiyey golli maxaan ka sugnaa markaan waa buy runtii ilaa halkaa in la tegi doono ilaa iyo in la gaari doono 1917 in la gaari doono hadaa fiirisid halkan brick artist uu sameeyey runtii brick artistiga waxa weeye song meeshaas song weeye waa la jebin waayey markii dambe la jebiyey artist baa lagu sameeyey kadibna waxaa laga aaday buy baa laga aaday kadib 4 hour-ka hadaa fiirisid halkan fiir wax yar baan ka tusayaa 4 hour-ka brick artistigan suuqu halkaas macnaha artistiga qof ka faa'iideysan wax laga yaabaa halkan inta yarta in lagu laaban lahaa asalka looga dhufan lahaa taayirta oo kale 9 bi laakiin haddii aad ogaan lahayd aqliyada yarta oo ku jirta meesha inay tahay meel supply aynay tahay halka dhiman aynay tahay loo soo socdo brick artistiga macal waxa weeye suuq dhiman dhiga xataa uu soo kale garanayo xala tagay dhiman dhigi waa la yimid halka waxa la jibiyay opposite resistance la jibiyay waa la soo laabtay liquidity waxa la sameystay liquidity wal baa la sameystay for one hour ka daan tago oo kale kaba soo qaad meesha maxaa ku jira equal highs equal lows baa ku jira waa kan equal low caadi oo siman waa u jeedaa baa ka dhacay meesha kadibna waa la yimid waa laga dhaqaaq baa laga aad marka inaad waxaaga isku darsatid wax ka qurux badan ma leh hadda marka maxaa la jebiyey si caadi ah tan wax iska yar bay ahayd laakiin si guud ba markan waxa loo sameeyaa haddii la yiraahdo si guud baa markan loo sameeyaa insha Allah runtii midii hore ka qurux badan waxaa loo sameeyaa suu meeshan gol u jebiyey insha Allah tas ku soo sameyn doonaa tastiga sidoo kale la soco halkan waxa la jebiyey equal waxa la jebiyey resistance waxa la jebiyey opposite resistance baa la jebiyey sidoo kale markii halka lagu soo laabtay tastiga markii lagu soo laabto meesha waxa ku jira ogow meeshan dhiman kale meesha way ku jiraa waxaan warba hadda joogaa Soomaa 30 daqiiqo waa tagi karaa 30 minute baa tagi karaa meeda halkan area-dan oo dhan waxay ku noqonaysaa meel waxa weeye supply ah wax kala dhiman marka meeshan iyo meesha hadda maxay isdhaawaan ana suuqa ka gashay halka ina suuqa ka gashay iyana halka ka gashay hadda maxay isdhaawaan waa halkan dal kaliya xusma dhaawaan waa waxa weeye wax la isku haleyn karo weeye kadibna aad ka faa'iideystid waxa weeye kaliya laab waxa weeye uga faa'iideystid oo suuqa ka baaygareysid halka haddii la yiraahdo ama halkaas waa same maxaa yeelay brick artistigi suuq markuu soo jebiyo halkan buu imaanayaa almost halkan buu soo hidgareynaya halkan waa meeshii laftigeediiba aad fiirisid kadibna waxa weeye kulli waxaan ka rajaynaynaa buy waa newskana sidoo kale inaad newska iska ilaalisaan trend cusub baa kaga abuurmay meeshaas trend cusub baa kaga abuurmay marka saasaan ka sugaynaa insha Allah haddii la yiraahdo marka ayaa su'aal qabo walaal waa franka dhan codka haddii la yiraahdo waa franka dhan codka ustaado
hawlal أستاذ وعاك ودير وحاوي زونك أن صارنايا عبر أن كعبر ما جرى معني أنت بيو زونك أكاد جنايا مش زونك أنت أسلاي أو كوركشنك أنتو يما كعبرناها macnaha meesha asalka dhiganaysid ba halkan oo kale أسأل كمان زونك عاد سبلايك أما دمان كمتكون نقضاه زونك أسمع جنايا أنت أن كاد جنا أنت بيو كاد جنا زونك وياه zoonku waxa weeye zoonku sidiisaba waxa weeye suuq markuu suuqu wuxuu aadayaa buy buu suuq saas kale u dhaqaaqayaa kadib rejections yar buu sameynayaa rejectionska markuu sameeyo yarka suuq awood buu uga dhaqaaqayaa meeshii marka waxay ku noqonaysaa meesha demand zone bay ku noqonaysaa marka waxa dhiganaysaa waxa weeye candleliska yar yar oo mataqaanaa sell iyo buy-ga waa si dhammaystiran u saaranaysaa saas u saaranaysaa halkaas waxay ku noqonaysaa waxa weeye demand bay ku noqonaysaa sidoo kale meesha marka suuqa aad ka raadinaysid supply ka raadinaysidna waxa weeye suuq waa sell u soo dhaqaaqaya marka qaarkood waxa weeye supply wuxuu noqon karaa ama demand dhigu halkan dal buu noqon karaa oo sell ah oo rejection wata kadibna 4 hour ama 1 hour oo kadibna suuqa halka aad looga soo dhaco meesha marka lagu soo laabto waxay ku noqonaysaa meel supply ku noqonaysaa halka kan dal baas u saaranaysaa haddii kalena waxa weeye haddii oo labada dhinac ka saaranaysaa ilaa dhamaystirkiisa waa dhamaystiraysaa haddii kalena waxaan dhici karta in waxa weeye intuu suuq saas sameeyo rejections yar yar uu sameeyo saan oo kale ah rejections yar yar oo same ah uu sameeyo isku tegay kadibna meesha ay ku noqoto waxa weeye supply bay ku noqon kartaa suuq meesha uu ka daadanaya halkaas oo dhan waxa weeye ku noqonaysaa supply ku noqonaysa kadib suuq waa soo dhacaya hadhow markii meesha la yimaado shuruudihii dhan baa ka fiirinaysaa waa lagu soo laabanaya kadibna waa laga daadanaya marka saas weeye brother waa fahantaan filaya soonka caadigana waxa weeye soonka caadiga haddaa fiiriso waa kan yiri soonka caadiga waxa weeye suuqa buy buu ku socdo soo maaha halka wuxuu ka sameeyey fiiri wuxuu ka sameeyey lower high buu sameeyey irtasi buu ku sameeyey halkan buu suuqa ku laalaabtay halka waxay ka ahayd resistance halkan waxay ka noqotay support in waa la jibiyey support bay noqotay waxay noqotay kadib waa la soo jibiyey waa lagu laabtay resistance bay noqotay waa la soo jibiyey halka macnaha waxay ku noqonaysaa zone meesha lagu laalaabtay oo waxa weeye marna buyers haysteen marna sellers haysteen zone way ku noqon kartaa marka sidoo kale halkan ma ku noqon kartaa meeshaan talabtigeeda waxay ku noqon kartaa zone bay ku noqon kartaa meesha ilaa halkaas marka zoneku waa saas weeye walaal qof kale wuxuu soo assalaamu calaykum وعليكم السلام walaal waa fiirinaya baashi waa waxa ku weydiin lahaa ha walaal waxa ku weydiin lahaa kasoo qaad ba hadda market structure zones iyo smart money way Soomaaliya waha marka haddii ka waran maalin walba kii interest aan ka qadayso saxdi ma aan brian kasoo interest aan ka qadayo waa sax waa sax brother waa sax ka rabtid baa ka qadayn kartaa kaliya macnaha waxa weeye mararka qaarkood markii xogaa ashakidii oo kale laakiin kale waxa kaga qaadanaysaa as mataqaanaa macnaha confirmation dheeraada kaga qaadanaysaa maanta brick arrintaasigaas aan helay brick arrintaasiga de waa u jeednaaba waa brick arrintaasigu suuq sameeyey halkaas ka sameeyey arrintaasigu ku laabtay waa kaga qadayn karaa halkaa oo waxa weeye ilaa seelka ilaa halkaas 280 ka waa kaga qaadan karaa hadda halkaa haddaan jaro kala fiir hadda halkaa jaro halka brick artist ahaan waa kaga qadayn karaa suuq markuu halka ii soo jabiyo fiiri markuu waxa weeye kandal soo jabiyo meeshaas kandal dhammaystiran uu soo jabiyo meesha fiiri wana hawarka hadda tagtid oo kale meesha waxay noqonaysaa waxa weeye caadi brick artist in ka soo kaasoo kale aan la qaadan weliga brick artist-ga noocan oo kale iska ilaali suuq markuu meel uu ku soo jabiyo hadda aragtid waxa weeye markii lagu laabtay qaab rejection in lagu laabtay laakiin zone la jabiyey waxa weeye markaas oo kale waa ilaa kandal kale seel uu soo doomaro ama waxa weeye meesha kandal soo buuxiyo xogaa lama qaato weliga seel looma qaato lacagtaas marka halkaas oo kale walaal waa ka qaadan kartaa halkaas oo kale waa ka qaadan kartaa waxa weeye brick artist markii la soo jabiyo oo kale oo kandal seel uu soo doomaro oo kale hadda weli kandal seel ma haysid weli suuq waxa weeye waa iska soconaya fiiri kandal seel ma haysid hadda kandal seel soo dhacay laakiin weli maxaa dhacay weli waxa weeye kandalkii kale lama soo simin fiiri meeshaas kale waa lagu laalaabtay fiiri hadda marka kandal caadi oo seel soo jibiyay markaas oo kale waa qaadan kartaa correction buu ila suuq gala moogta laakiin haddana marka dhiman dhigi marka fiiri sidoo kale halka waxa laga jibiyay equal waxa la jibiyay opposite support baa la jibiyay halkaan oo kale haddii 30 daqiiqo oo kale aan tago waxa macquul inaan ka helo waxa weeye meelahan aan dhiman ka helo almost hadda kandalka rejection sameeyay fiiri waa dhiman qurux badan runtii maaha kaasoo kale waxa weeye dhiman lama dhigi karo laakiinse almost suuqa halkaas ku laalaabtay meeshaas buu waxa weeye suuq ila laabasho ku sameeyay halka haddii waxa weeye intriga ka qaadan lahayd
ina waxa ogtahay xataa meesha ay tahay correction ay tahay ba ogti marka brig artist waa kaga qadin kadhaa barada hadii kale waxa adeegsan kadhaa waxa weeye hadii kale waxa adeegsan kadhaa as a confirmation hadii meesha supply confirmation waxa weeye supply zone meesha laga siiyo waa kaga sii qadin kadhaa caadi kadib suuqi hadii kalena xaggaas correction ka suuq uu sameeyay meeshan correction uu sameeyay suuq waa ku laabtay correction kaas waxa weeye labada trend line ka saaranaysa as a brig artist ahaan kala ka sii fiirinaysa xataa counter trend line ka marka la jibiyo waa kaga sii qadin kadhaa marka suuq mar walba muxuu sameeyaa wuxuu sameeyaa baalki wuxuu sameeyaa waxa kan yaado wuxuu sameeyaa almost suuq hadda halkan intee soo dhacay intee buu ka soo dhacay meeshan ka soo dhacay soo laakiin markaan oo kale hadda trendigi suuqa maana soo fiirin hadda 4 hour 1 hour baan iska tagay waa iska jaray laakiin si mar walba macnaha brig artistiga marka suuqa kaga qaday almost halkan suuqa fiiri meeshu ka soo laabtay dhowr bottom buu sameeyay kadib wuxuu jabiyay neckline buu jabiyay kadib neckline buu test ku sameeyay kadib saas bay ku aad marka macnaha waxaan ka wadaa wax kale maaha suuqa marna waxa weey brig artistiga uu ku siiyay kaga qaday marna demand and supply uu siiyay waa kaga qaday ka dhaaway caadi brada su'aal kale yaa qaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بشير يورن شو عنك باشي؟ والله ما شاء الله الحمد لله أدم في عناسيته. الحمد لله وحان ربي هل سؤالنا عن كويدية؟ هاي. مرة المركي أو liquidity مهم آد مهم يقوى. صح. مركا impulsive كسته أو سوق السمايا إنتو صندقاقين إن liquidity أو سمايا مواجبة. معناها suuqa macnaha inuu markuu dhaqaaq u sameeyo oo liquidity sameeyo may intuusan dhaqaaq sameynin ka hor inuu macnaha waxa ka wadamiya oo order block sameeyo ama meel supply Amazon u sameeysto marka inuu sheegay oo either midkood uu sameynayo ama supply ama demand zone markuu ka laaban rabo inuu liquidity before impulsive ka hor macnaha برادة واجبة. horta liquidity waxa weey walaal waa liquidity de waa suuq maartay godka uu sameysanayo ama equal lowgaas laftiisa liquidity zone waa dhigi karaa waa sax laakiin macnaha waxa weeye markuu suuq uu dhaqaaqayo mar walba suuq markuu waxa weeye soo dhaqaaqayo hadda aragtid waxa weeye meeshaas waxa laga yaabaa suuq inuu ku siin waxa weeye supply isku siin oo iska sii data laga yaabaa markaas kale waxa weeye confirmation waxa weeye supply ama demand ma haysan karin laakiin macnaha suuq wuxuu sameysanayaa liquidity waxa weeye markii suuq uu sameeyo halkan dal uu soo dhacay suuqii ka soo qaatay ku jibinaya wuxuu sameysanayaa halka waxay ahayd laga yaabaa low siman inay ahayd supportigu jibinaya marka suuqii wali muu sameysan markaas oo kale soo qaad inuu sameysan baa laga yaabaa imbalance soo dhacay uu sameysan waxa weeye order block ama supply ama demand zone kadib halkan dal oo wuxuu kan dal yar yar oo wuxuu sameynayaa siman buu sameynayaa sikandar yar siman buu sameeyaa kadib suuq uu soo dhacaya marka weeye marka adiga marka aad xaqiiqsanaysid waxa weeye waxa demand zone ama supply zone uu yahay laakiin kan la iska soo dhacay meesha waxba kuma noqonayo suuq waa inuu intuu soo dhaco wax yar sameystaa demand yar uu sameystaa waxa ka wada ama supply zone yar uu sameystaa uu soo dhacaa kadib waxa weeye halkaas hoolka uu sameysanayaa liquidity-ga uu sameysanayaa laakiin liquidity-ga waxa la rabaa in suuq intuu soo socdo inuu counter trend line meesha ku yimaado as a correction meesha inuu ku yimaado uu laabto saa ku tago meesha macnaha god yar inuu suuqa halka ka helo kadib almost waxa haystaa supply waa haystaa kadib meesha suuq muxuu sameeyaa suuq waa aragtay hadda suuq aanu aan galno correction ku sameeyaa saan oo kale uu sameeyaa Soomaa ana la laabashada adiga suuq la laabanaya adiga waxa laga yaabaa inaad tiraahdo 1 2 3 diyaarsanaya laakiin suuq wuxuu sameysanayaa equal highs iyo equal lows iyo waxa weeye iyo mataqaana iyo liquidity waxa weeye liquidity hallkii waxaas oo dhan buu abuuranaya dadkii macnaha smart money baa suuq waxay sameysanayaan iyo bankiskii baa suuq waxay u diyaarinayaan waxa weeye sell inay soo aadiyaan adi laakiin baatanka suuq uu sell ku aadaya taqaana kaliya laakiin ayagu confirmationka ay sellka uga qaadanayaan bay yaqaanaan marka intaas suuq u sameysanaya uu soo laabanaya kadib uu soo dhacaya marka waa faan Soomaa walaal walaal Bashir okay waaye laakiin ishaga counter trade kaasi aad dhahday meeshaas liquidity-ga sameynayso naftirkeeda in la soo jibiyo lagu naqdo waa taasna waa sameyn ka dhaa taasna waa suuq ka dhaawacay confirmation macnaha hadii risk macnaha waxa kala duwan yihiin midna waxa weeye waa risk intrigue iyo halkaas ka soo qaadanaysa oo supply waa ka soo qaadanaysa
midna hadda aragto waxa sameyn karaa counter trending marka lagu jibiyo loogu laabtay correctionka loogu laabtay markii correctionka la soo jibiyay baa waxa uga faa'iideysan karaa istiraatiijigan labaad oo ahayd break and retest okay marka sidaas way walaal laakiin mar walba inuu impulsive kadib uu sameeyo liquidity waajib ma aha macnaha inuu macnaha impulsive mar walba uu dhaqaaq ka hor dhaqaaq intuusan sameynin pullbackta amise correctionka waa inuu soo abuuraa liquidity la soo cunaa markaasuu soo abuuranaya markaasuu waxa weeye markuu suuqu uu supply-gi abuurto marka hore supply buu abuuranaya supply-gi markuu abuurto kadib suuqu waxa weeye wuu soo dhacaya markuu soo dhaco kadib intuu soo socdo almost zone xaggan ahaaba oo mataqaanaa zone mataqaanaa ahaa support zone aha opposite-ka waa la jibiyay kadib markuu soo socdo wuxuu samaynayaa maadaama halkaas supply ay ku tahay wuxuu samaynayaa maanta oo suuq anu correction u naqaanaa moogta correctionka la laabashada uu suuq halkan wuxuu ka samaynayaa liquidity buu ka samaynayaa liquidity zone buu samaynayaa kadib markuu aada korkaas supply uu dhow yahay waxoogaa soo noqonaya anigu laakiin intaa waxa u naqaanaa correction ma u naqaanaa kadib waxa weeye laba high buu samaynayaa oo siman kadib markaasuu laabanaya oo dadkii waxa weeye looga dhufanaya SL-ka kadib uu soo dhacaya marka risk intriga waa ka soo qaadan kartaa haddii kalena waxa ka soo qaadan kartaa markuu suuq sameeyo halka waxa weeye trendiga uu jabiya ka soo qaadan kartaa oo as a break and retest ahaan baa uga qaadan kartaa markii structure-kii ku soo analyze garay inta ka fiiri break and retest wax walba oo adeegsan kartaa suuq okay waa mahadsantahay aad iyo aad baa mahadsantahay madawna marka waxa weeye waxaan rabaa opposite resistance yar celi ma fahmin biyinkan باشيو السلام أولا سودا waxay leedahay opposite resistance igu celi hal mar baan soodo tusaya wax yar opposite resistance waxa weeye walaal suuq waxa weeye markuu samaysto waxa hadda suuqan waxa u jeedaa suuqan waxa weeye wuxuu sameeyay double bottom uu sameeyay ama halkan wuxuu ku soo laabtay meel wuxuu ku soo laabtay waxa weeye zone abu ku soo laabtay zone markuu ku soo laabtay zoneka buyers ba waxa weeye order block bay meesha ku tahay order block markii meesha ay dhacday waxa rabtaa waxa weeye suuq meesha buy ina uga gashay marka waxa ka fiirinaysaa supply and demand confirmationskeeda baa ka fiirinaysaa confirmationska maxaa kamid ah supply and demand-ga demand-ga confirmationkiisa waxa ahaa suuq inuu marka hore uu jibiyo waxa weeye opposite resistance uu jibiyo opposite resistance waxa weeye suuq waxa weeye meesha uu ka samaystay markuu soo dhacayay oo suuqu seelka u soo dhacayay oo meesha uu buy ka aadayay hadhow noqonaysa waxa weeye zone-ka noqonaysa markuu u sii socday suuqu high buu abuurtay uu soo laabtay kadib suuqu waxa weeye high-gii u dambeeyay higher high-gii u dambeeyay wuu jabiyay kadib muxuu soo sameeyay retracement uu soo sameeyay marka opposite resistance waxa weeye geeska bidixda markaa fiirisid suuq meel ahayd higher high intuu jabiyay waa inuu haddana dib u soo jabiyaa mar labaad kadibna uu abuurtaa kadibna waxa weeye liquidity uu abuurtaa liquidity kadibna waxa weeye opposite resistance waxa weeye oo equal low kadibna waa inuu jabiyaa equal low haddii hadda 4 hour baan joogaa haddii 1 hour aan tago equal low siman baa laga helayaa halkan caadi ah kan halka rejection-ka oo kale meeshaas waxa weeye waa meel laga noqday oo kale baa halka buy ka buy gareeyay kadibna waa looga dhuftay kadibna buy baa la aaday waxa weeye saasa buy halka loo kaxeeyay suuq haddana suuq wuxuu jabiyay halkan fiiri haddana suuq saasuu buy ugu socday opposite waxa weeye wuxuu jabiyay resistance uu jabiyay uu soo laabtay wuxuu ku laabtay fiiri suuq oo dhan wuxuu sameeyay waa intaas buu weeyay halkan maxay ku tahay waa zone bay ku tahay wuxuu jabiyay suuqa fiiri wuxuu jabiyay adiga mar walba jihada suuqa iska fiirinaysa wax muhiim ah ku sii caawinaya waxa weeye jihada suuqa taqaanaa wuu jabiyay wuu soo laabtay halkan maxaa la sameeyay equal low baa la sameeyay kadib maxaa la yimid meeshii waxa la yimid supply kadibna waxa weeye saas bay lagu aaday marka ina fahanteen ma filaya aad fahanteen ma filaya hawlal ما يكبح مية واحد ما حتى تامن يا إن شاء الله دولا يرادو بريك أنت تسيا واحد نكتب سينيا كدم من واحد وهم يندم أيضا فافاسن شيء إن شاء الله دولا يرادو لكن سؤال شغلته يودين كده برا ألو ألو جارتك هذا فعل أول قيب تبدأ كثير مركز قيب تاني بدح أو descending أو كسر دعاي wuxuu sameeyay pullback impulsive صح marka impulsiveyadaasi uu soo sameynayay ma la dhihi karaa marka wuxuu sameystay impulsiveka intuusan soo dhaqaaqin liquidity zone wuu sameeyay ma la dhihi karaa macnaha impulsiveka intuu soo dhaqaaqin ba ha may waxa weeye hadda halkan markii low time frames kala tago
waa laga yaabaa ha waa wuu sameeyey khasab wuu sameeyey haddii lower time frame la tago fiiri lower time frame hadda tagayaa fiiri lower time frame haddii aan tago hadda hal mar aan isla eegno baad horaale ha haye walaal haye lower time frame wuu tagay fiiri hadda waxaan fiirinayaa halkaasaan jaraya day okay halka markaan jaray suuqan maxaa ka hesha adiga confirmation maxaa ka haysataa confirmation waxa ka haysataa fiiri confirmation waxa ka haysataa suuqan waxa weeye brick artist horta waa ka haysataa kow hadda brick artistiga marka confirmation waxa u baahanahay jihada suuqan waa sell waa u jeedaa confirmation marka waxa u baahanahay suuqa waxa weeye aan ku sell garaya u baahana marka suuqan hadda muxuu samaystay fiiri suuqan halkan wuxuu ka samaystay supply buu ka samaystay supply zone buu ka samaystay soo maaha sidoo kale supply zone-ka maxaa caawiyey wuxuu jebiyey opposite resistance buu jebiyey kadib halkaas adiga markii aad waxa weeye suuqa ka sell garanaysay 1 hour tag 1 hour markaad tagtay almost muxuu abuurtay halkaa fiiri almost 1 hour ka 30 minute baan tagayaa marka wuxuu samaystay liquidity hole wuu samaystay laakiin wali equal high halkaas ama waxa weeye wixii suuqa looga galay muus samaysan qaabkii confirmation muus samaysan wasla eegi doonaa marka insha Allah hadii la yiraahdo hadda fiiri halkan hadda fiirisid suuq zone-kii waa tagay waa sax laakiin se waxa weeye equal high qurux badan halkan kama sameyn markaas oo kale istiraatiijiga brick artisiga waa uu qadayn ka waxa kale waxa sameyn ka waxa weeye suuq mar labaad inta soo laabanaya mar labaad suuq soo laabanaya ase equal high hadda halka waa u dhigan ka laakiin suuq mar walba waxa weeye uu ixtiraamaya demand zone-ka uu ixtiraamaya uu soo laabanaya halka yarka hadda fiirisid kale meeshan hadii aan taga 15 minute kale waxa laga yaabaa in halka ka helo meeshan waxa laga yaabaa inaan ka helo waxa weeye equal high inaan ka helo laakiin hadda tan suuq hadda soo sameeyay oo kala fiiri suuq hadda soo sameeyay wax counter trade line muus sameyn waxa moodaa imbalance awooda waxaan leeyahay baa moodaa marka waxa weeye waxa sameyn ka inta laga jibinayo oo kale waa suuq ka daaratid oo meesha waxa weeye zoonka suuqa daarta uu soo buuxinayo markaas oo kale confirmation taa waa ka dhigan ka laakiin saan hadda kuma qaadanaysa xagaas waxa weeye wax confirmation maaha laakiin as a brick artist ahaan hadda u fiirinayso adhaasi brick artist ma kaga qadeynaya waa brick artist caadi marka halkaas high waa ka dhigan ka oo kale kaba soo qaad brick artistigi haddii aad ku qanacdana ku qaadan ka haddii kalena demand-kii ma hayo equal high ma hayo caadi halkaas oo kale waa fiirin ka suuq inuu soo laabto uu mar labaad meesha ku soo laabto kadibna waa kaga soo qadeyn ka kadib waa fiirinayna meesha suuq sameeyo inuu jabiyay in kale meeshaas suuq meeshi ma imaan laakiin suuq waa sii daata sababtu ku sii daatana waxa weeye halkan wuxuu ixtiraamay waxa weeye brick artistigaas uu ixtiraamo oo kal iyo laab uu uga soo daat waa brick artist sidoo kale muxuu suuq ixtiraamay suuq wuxuu ixtiraamay waxa weeye zone-kii buu ixtiraamay brick buu sameeyay test buu sameeyay laakiin hadda fiirisid oo kale waxa weeye halkan oo kale hadda fiirisid suuq halkan equal high haddii 5 minute kala tago waxa laga yaabaa halka equal high inay noqoto laga yaabaa 5 minute oo kale waa laga yaabaa meesha equal high inay noqoto kadib suuq meeshii uu ku ixtiraamay marka halkaas almost brick artistigi confirmation baa ka haysataa sidoo kale demand-kiina confirmation wali equal high qurux badan ma haysto markaas kale brick artistiga waa ku qaadan ka waa caadi akaga qadeyn ka marka waa ifaantaan filiya brother masha Allah si wanaagsan waa mahadsantahay okay yaa kalo waxa weeye Muuse Bulshaawi waa hadli ka brother waad mahadsantihiin dhamaantiin oo salaamaya niba waxaan ku weydiin lahaa anigu waxaan ku trade garayaa tan aadimaka koobiga ka soo qaadaysan damaana sabalayga liquidity waxay wadata oo anagu waxa aan ku darsanay market structure-kii kaligeed ma isticmaalo bring and register tan aad ku dardarsanaysan ba sideedo qallalan u isticmaala marka shalay baan ku murgaday euro USD baan si lagu jiray sababta ugu murgatay waan tageynaa daawo sababta ugu murgatay waan tageynaa xagee ka soo gashay waxa ka soo galay bartaawe shalay tala ka dhaqaaqay ay igwalow ay ka jabisay halkaas ka soo barta kandhalada casani ka soo dhaceen ma kandhalkan bluega dhinaciisa halkaas ashir mid ku saarantay bartaasan ka soo gala marka TB1 baan ka qaatay kadibna way igu noqotay waa dayga saartay SL kun halka si yaalay slack ta sare ana waxba soo raadin waxba ku sameyn xilligiina UX session ka buuday marka aniga tayada wax walba way samaysay bal nidaamyadan kale ee aad ku dabaqday sida iiga hoos baxday baan ka qishay walaal waxa laga yaabaa inaad ka soo daahday waxa weeye casharka markaan falaqeynayay sababta ay SL ka dadka uga dhacday adoo markaas si dhameynaya baan soo galay absolutely waxa marka waxa iri
sababta halka dadka SL-ka ay wasaadhay way saxsanayd oo rules-ku dhan way ku saxsanaayeen opposite zone-ka waa la jabiyay waa sax sidoo kale waxa weeye liquidity waa la sameeyay sidoo kale waxa weeye equal high-gi waxa walba waa la sameeyay waxa walba suuq waa sameeyay equal high-gi halkan waliba hadaan dhigan oo dhigo meeshaan oo kale hadaan dhigo halkan waa tan waa si siman beexta u sameysay kadibna zone-ki waaba kan oo supply-gi waaba ku saxsan yahay markaas oo kale sababta SL-ka garaacaysa waxa weeye suuq wuxuu jabiyay trending-gi uu suuq jabiyay macnaha trending-gi suuq uu ku socday ba trending-ga wuxuu yahay sell buu ahaa kadibna trending-gi wuxuu noqday buy buu noqday hadaa fiiriso halkan lacagtu waxay jabisay channel bay jabisay 1 iyo 2 iyo 3 bay ku jabisay kadib waxay sameysay fast break aragtisi bay sameysay break aragtisi bay sameysay kadibna buy bay aad kadib meeshii waa la yimid waa lagu soo ixtiraamay saa sheegtay TP1 baa lagu garaacay kadibna lacagtu way kugu laabatay sababtoo ah waxa khilaaftay trending suuqa khilaaftay wax kale ma aha sababtu walaal trending suuqa khilaaftay trending suuqana lagaga saara sababtu waa inta marka dubaan ay ku dhumantaan marka waliga trending suuqa iska fiiris istiraatiijiyada waxay macaan tahay markii trending suuqa og tahay aad 100% og tahay eega Sweden ku arkay tab iyada tan ilaahay markii ma ba arkaynin eega Sweden laakiin arkay jiro walaalo eega Sweden ku arkay taasoo kale to sel ah markaasaan idhi warni waa tii loolan jiray mar break and retest mar buu saameeyaa ma ka baxdaa baan isiri san haddana si warni sharciga ku adkaysanaya aad waa dhim mala hadda kadib isku dhuman doonaan haduu ilaahay yiraahdo marka guys waxa weeye hadda waqtiga waa naga dhacayba haduu ilaahay yiraahdo habeen dambe istiraatiijiga waxa weeye break and retest baan insha Allah dhameystirayna haduu ilaahay yiraahdo si fiican baa isku arkayna insha Allah haduu ilaahay yiraahdo inta ka horeysana waxa weeye aad iyo aad baan islaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ustaado hawl ustaado almar AUDUSD bal amar fiiri waa ka ilaawi sorry brother waa ka ilaawi AUDUSD horta asbuucan adinkoo dhan waxaan kala dardaarmayaa insha Allah inaa iska ilaalisaan asbuucan waxa weeye NFB baa jira marka NFB maadaama NFB uu jiro waxa weeye suuqa inaad aad uga taxadaraan lacagtan waxa weeye AUDUSD runtii zone hadda wayba joogtaa meel adag bay joogtaa laakiinse waxaan fiirin doonaa weekly time frame ka eegi doonaa insha Allah dulaa yiraahdo weekly time frame ka maxay sameysay weekly time frame ka waxay sameysay soo laabashay sameysay oo trendiga suuqu waxa weeye saa trailing saa u dhuuban oo mataqaanaa inkastoo isku qurux badnayn laakiin lacagtan meeshay ka laabatay waxa weeye waa meel runtii dhiman ah sababtay uga laabatayna waxa weeye daa fiirisid opposite zone-ka way jebisay sidoo kale waxa weeye liquidity way sameysay wax walba way sameysay halkaana waxa ku jira meeshaas equal low baa ku jira marka intaa markay sameysay sidoo kale confirmation market structure maxaa ka haystaa market structure ahaan wax confirmation ma ka haystaa confirmation ka haysta waxa weeye trendiga suuqa waa down laakiin haddana waxa weeye trendiga down-ka waa la jebiyay oo jeedaa meeshii trendiga ay ka jebisay break and retest laftigeedii waxa ku sameystay confirmation waxa weeye demand zone ku sameystay oo wax walba suuqa halka bay loo gal karay loo galay halka hadda qofkii ka bay gareeyay almost 208 bib ku haysta daily time frame markay imaanayna daily time frame ka hadda fiirisid meesha laga soo laabtay waa zone meeshan marka opposite waxa ku jira low yar baa ku jira in macnaha demand zone ka yarka lagu ixtiraamo laakiin sababta lagu ixtiraamayo ay tahay suuq marka wuxuu sameysanayaa uu soo laabanaya suuq tasti uu sameysanayaa oo macnaha correction baraha ka bilaabanaya halkaas marka qaar low time frame hadda sidoo kale correction uu sameeyo waxa ka faa'iideysan karaa halka in correction laga soo sameeyo kadibna waxa uu suuq marka uu saabay ku aado marka hadda AUDUSD trendigeedu waa maxay trendigeeda haddaan fiirino trendigeedu waxa weeye oo 1 hour ka ah ma daily haddaan fiiristo waa down trend weeye marka waxa suuq ka dhabarada 4 hour ka waa tagayna haddana 4 hour kan fiirinayna insha Allah dulaa yiraahdo marka 4 hour ka trendiga soo qaad trendiga si fiican isaga sax halka dhig trendiga almost halka dal baa jabiyay laakiin hal ugu jabiyay waxa weeye hadaa buy u galisay suuqa zone-ka hal ugu jabiyay zone-ka dhimaanka supply-ga hal ugu jabiyay halka hadii suuqa uu ku jabiyo uu si fiican u jabiyay waliba hadii inkastoo imbalance-gan awood uu yahay oo hadii meesha la sii jabiyo wax yar saa hadii loo dhaqaaqo xogaa way iska waxa weeye tasti aan yar qurux badnayn maxaa yeelay suuqu correction macquul ma sameyn oo suuq haduu imbalance uu sameeyo waxa qurux badan marka galayso suuq inuu 50% u soo laabto suuq waa qurux badan hadii kale inuu 60% u soo laabto suuqu ayada laftigeedana way qurux badan kadibna suuq aabaas u waadid laakiin suuq waxa weeye intuu candle awood saa waxa weeye imbalance u dhacay in waxa weeye halka 38% ayadoo xataa aan la soo laaban inaad tiraahdo waa buy gareynaya xogaa ilama yar qumana marka waxa insha Allah waxa iska eegtaa hadii la yiraahdo lacagtan
lacagtan inay soo laabato meesha ay ka soo laabato wax yar 1 hour ka hadaan tago meesha waxa weeye halka areadan break out ay ku samaysay inay retest ku samayso sidoo kale retestigaas ma ka dhow yahay daan fiirino meesha retestiga dhimaankii ma ka dhow yahay almost waa ka dhow yahay waa kan daa fiirisid waa kan waa dhimaankii waa kan marka waa isku meel marka waxa samayn kartaa waxa weeye halka hadaa ka baygiray sidoo kale halka bay kaga qaad information uu ku sameeyo oo kale SL-kaaga oo kale ilaa halkaas kale waa iska dhigan kartaa ilaa 45 waa ka dhigan kartaa ana ma aase dhimaan dhiga hoostiisa wax yar dhigo insha Allah dalka ka baygirinaysa support and resistance wax walba ku hadii kale markii waxa weeye break out lagu sameeyo waa qaadan kartaa labada confirmation baa ku qaadan kartaa brother marka guys waxa weeye aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waqtigan ugu dheeraaday insha Allah habeen dambe waxa weeye break and retest hadii la yiraahdo aan waxa weeye dhigayna insha Allah hadii la yiraahdo marka aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.